dawladda hoose ee degmada Baligubadle ayaa maanta deeq Dawooyin gaarsiisay Xarunta Caafimaadka deegaanka Gumar ee gobolka Hawd. Iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Hawd ayaa deeqdaasi Dawooyinka kala wareegay maayirka degmada Baligubadle. Munaasabadii lagu kala wareegay deeqdaasi Dawooyinka ee dawladda hoose ee degmada Baligubadle ugu deeqday deegaanka Gumar ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax, maayirka degmada Baligubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine, xogayaha gobolka Hawd Maxamed Faarax Suugal iyo iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Hawd Axmed Cali Dreyse iyo maamulka iyo waxgaradka deegaanka Gumar ee gobolka Hawd iyo dadweyne kale. waxaana ugu horeyn deeqdaasi Dawooyinka ka mahadnaqay isla markaasina sheegay in baahi weyn u qabeen Dawooyinkaasi maamulka deegaanka Gumar. maanta noo sharaf bay tahay barasaabkayagii maayirkayagii iskuduwahayagii wixii ugu baahida badnaayay Dawooyinka ahaa noo keenay oo nagu mahadnaqayna. waxaan soo dhaweynaynaa barasaabka gobolka iyo maayirka degmada iyo iskuduwaha caafimaadka oo maanta noo sida deeq ah Dawooyinka. alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay mahad leh. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Hawd Axmed Cali Dreyse iyo xogayaha gobolka Hawd Maxamed Faarax Suugal. waxaan halkan gudoomiye kala wareegaya dawadan 34 item oo isugu jira Dawooyinkii muhiimka ahaa ee ay u baahnaayeen deegaanka waqtiga jiilaalka oo aanu markii hore ka codsanay dawladda hoose inay naga caawiso deegaankan iyo deegaanka ina cunaye oo naga ajiibay maayirka iyo golihii deegaanka ee degmadu ay naga ajiibeen health sportskii deegaanka Gumar oo markaasi golaha deegaanka ee degmada Baligubadle oo warkacayo maayirka degmada iyo barasaabka gobolka Hawd ay ku wareejinayaan daawo loogu talagalay health sportska deegaanka Gumar. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Baligubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine iyo barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax. waxa aan la kulanay gudida degmadan ama tuuladan waxay noo sheegeen baahiyaha ka jira intii karaanka iyagu ahaa wixii anaguna waanu ka soo jawaabnay insha Allah bismillaahi kariim. arintan iyo Dawooyinkan aanu keenay waxay ka mid tahay siyaasadii ama qorshihii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan lagu hogaaminayaa barisaabka gobolka Hawd. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ballanteenu, laakiin waxa weeyaan wada shaqayn, cashuurta la soo bixiyo, beeraha la soo tiro koobo, cashuurta beeraha oo la soo saaro. maanta waxaan halkan u joognaa aniguna goobjoog aan ka ahay waa baahiyihiinii aad soo gudbiseen ama waqtiyadii kormeerada aan nigu maraynay ama qolada degmadu ay nigu martay aad u dhiibteen mid ka mid ah maanta. waxaan aad uga mahad celinayaa halkan maayirka degmada Baligubadle oo aad iyo aad u raba ama u han weyn inuu wax ka bedelo deegaanka iyo meesha uu wax ka yahay. insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahayna la qaban doono, annaguna aan garab ku siin doono haddii Allah yiraahdo. inkana bulsho ahaan waxaan rajaynayaa haddii Allah yiraahdo mar haddii wasaaraddiina ay soo ogolaatay in MCHkii la fasaxo, MCH la dhiso, in gacmahan isqabsano dawlad hoose ahaan, gobol ahaan iyo dad ahaan haddii Allah yiraahdo. Maxamed Jiiro Axmed iyo Cabdinajiib Dayb Ismaan, TV qaranka Soomaaliland, magaalada Baligubadle.